السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهري مقعي وحوي فلسطين عبد الله أحمد وصول وجهنا لكسنتس فلوق وحصول بيني هذا ما سبسكرايب بركع الصب. ما تحيدي وذا فيديو بدن سؤالات بدن إيكي مثل حاجة هندي ما دام هندي كسوكتها حال صورها حالة هندي نوصورا قابك ضدك شعلنا إمالا هذا نقطة كنعسي عافمات أما هذا نقطة وحبرشة أما تلحيس انتصفى. أوكي لو خذ بدن هندي ديما بدن آد وقلتوان luuqadaha waxa kamid ah laba luuqadood waxay u tahay official oo ah Hindi iyo Urdu waa laba luuqad aad iskugu dhowna iyo Englishka sidoo kale diiman badan ay kala haystaan muslimaan jiro muslim ku nool waxa ku nool diiman kale aad u tiro badan ka bitihiin kuwa dhibicda anaga aan raahno filmaanta ku aragno sidoo kale Hindi waxa jirto luuqadeedu waa luuqad aad u fudud qof isku day inuu barto aad bay u fududahay luuqada Hindiga Hindi ama Urdu waa isla isku mid kale waxyaraayal difference u baa kala dhaxeeyo sidoo kale Hindi waxa jirto luuqada xageeda waxyaalo badan waxa jirta aan ka wadaag ay isticmaalaan waxa kamid ah sida moos bay dhahaan waxa kamid ah baraf bay dhahaan waxa kamid ah sidoo kale rooti bay dhahaan iyo waxyaalo kale oo dir badan aan aad iskugu dhownahay dhaqamada hantii waxyaalo badan ku soo wajahayaan oo wadan u baahan dulqaad aad u tiro badan sidoo kale Hindiya waxa jirto luuqadaheeda ay ku hadlaan Hindiya waxa jira wadankan wuxuu leeyahay saddex wax oo ku fiican yahay iyo saddex wax oo ku xun yahay aniga qiimeynta asameeyay saddexda wax oo ku xun yahay mid koowaad waxay tahay wadan aad u buluusho badan buluushanka waxa keenayo saddexda ku xun yihiin ayaan ka bilaabeynaa waxa keenayo buluushanka waa wadan aad dadkiisa u badan yihiin sidoo kale waa wadan traffic jam ah ama jaamkiisa aad u tiro badan baabuurta wadooyinka waaweynka aad bay u jaam badan yihiin waa wadan bilaa nadaafad marka leeyahay dawladdu waa wadanka way nadiifisaa laakiin shacabkooda ayaa nadaafada ilaalsanin wadan aan nadaafadooda ilaalsan shacabka saddexda ay ku fiican tahayna waxa waaye waa wadan maasha Allah amni ah waa wadan waxbarasho fiican aad ka helaysaa sidoo kale waa wadan caafimaad fiican aad ka helaysid caafimaadkiisana aad buu u fiican yahay wadankan sidoo kale sharciyada lagu joogo u degsan waxay kamid tahay sharciyada haduu sharciga ka dhaco oo lagu qabto sharciga oo dhacsan wadanka laga saaro exit lagu jiro wadankan forever dib dambe uma soo noqon kartid sidoo kale waxyaalaha kale ay ku adag tahay taas ka mid ah waxyaalaha kale ay ku adag tahay waxa kamid ah hadaa dambiga gashid aad bay u adag tahay dambiga xukuumadda aad bay u adkaanaysaa hadaa wadanka dambiga gashid dadka ku nool ma sha Allah Soomaalida xakeena anaga maadaama Soomaali ahadkeyga aan ugu sheekeynayo Soomaalida xakooda ma sha Allah Soomaali aad u tiro badan ku nool gobolka ugu fiican waa Heidelberg haday noqoto nolol ahaanta haday noqoto amniga haday noqoto danka cuntooyinka Heidelberg baa aad ugu fiican hadaa technology u baahan tahayna technology-da waxa aad ugu fiican gobol la dhaho Bangalore hadaa u baahan tahay medicine ama caafimaad hadaa ku sheegay Hindi isku soo lugoyn Hindi caafimaadka kuma fiican hadaa u baahan tahay dhakhtar oo indhaha inaad noqotid oo aad baratid iyo hadaa u baahan tahay inaad baratid medicine Hindi laga ma helo hadii laga helan aad bay difficult u tahay marka waxaan ku leeyahay hadaa Hindi karabtid medicine is au maarad dhakhtar inta dadka horeeyay ayaa ku lugo hawo imaanay oo tama kala raaso nolosha Hindiya waa nolol aad u degan u qabo maahan wax qaali ah maahan jibna maahan wax qaali maahan raqiisna maahan waa nolosheeda waxa waaye iska dhexdhexaad waaye si laga aaminsan yahay raqiisna maahan laakiin nolosheeda qaalina maahan nolosheeda waa nolol iska dhexdhexaad ah waxbarashadeedna aad ugu fiican tahay courseska aad Hindi ugu fiican tahay oo laga soo doonto waxa kamid ah koorsooyinka CCNA la dhaho CCNB la dhaho koorsooyinkaas oo technology-da qosay aad bay ugu fiican Hindi marka waxaan rajeynayaa insha Allah su'aalaad badan oo Hindi ka jawaabay oo aad xubna ka faa'iido videoga haddana noo cusubtahay channel-keena share like saar comment hoos ku qor waxaan idin dhiirabay aad ba ugu mahadsantihiin dhiirigelinta jacaylka wanaag aad in wajisiin sidoo kale haddii u baahan tahay su'aalihii talooyinka camal ah waxa igu soo diri kartaa Instagram-kayga waa Falastiin Cabdullaahi Axmed ama Facebook-kayga waxa waa Falastiin Cabdullaahi Axmed midka isticmaashada ku soo diri kartaa marka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.